magacaygu waa Miyir Maxamuud Raage. Kanada muddo ayaan ku noolaa. Kanada horta dadku siday ka qabaan ma aha. Qurbo dhanna waa sidaas. Meel walba oo joogtana waxay leedahay dhibaato gaar ah. Ama way ku noloshu macnaha marna way ku soo dhaweyn, marna way ku xumaynayaan. Waxaa loo baahan yahay samirkeeda inaad la timaado oo in la samro waa muhiim. Ummaddu waxay dhahaan samraasad ma waayo. Haddaad samirtaan waxaa laga yaabaa inaad waxa aad tabanaysaan aad ka baxdaan. Taas waa taas gabdho iyo wiilalba samra. Haddii aan Kanada dib u falanqeeyo runtii meelo badan baan ka soo marmaray inkastoo oo u badnaa Alberta. Haddana meelo kale oo Kanada ka mid ah waan soo maray. Hadday noqoto xagga shaqada ama waxa ugu roon in Alberta ayaa ugu roon. Inkastoo Alberta waagi hore ay dadku ammaani jireen ama ay saansaantu noloshu ay qurux badnayd. Marka haddana Ilaahay horta wuxuu ku qadaro umad heli way maysid. Hadda soo ku nooshay Vancouver kale ama Toronto kale ama Kitchener ama Ottawa. Waxaa laga yaabaa in aad nolol fiican iskaga noolaato. Laakiin aad weydo shaqo degdeg oo hore aad ku baahibeesho. Laakiin Alberta waa laga yaabaa haddaad muddo ku noolaato in aad shaqo ka hesho waa suuragal. Shaqadana waa iska calaf. Marka haddaad heshaan iyo haddaad weydaanba samirka la badiyo. Ruuxa cusub waayida hore waxaa jirtay ruuxu in uu iskii shaqo meel aado oo la kulmo oo helo waayo. Laakiin haddii ruuxu uu cusub yahay waayadan dambe waa inaad ruuxa saaxiibka ama familkaaga ay ku soo dhaweeyay ama dalka ku keenay aad xiriir fiican inaga dhaxeeyo oo kula sameeyo warqad resume shaqooyin kula raadiyo waqti uu ku geliyo. Kadibna shaqadii laga yaabo in Ilaahay kuu fududeeyo aad sidaa ku hesho. Marka shaqaduna waa samir mar baad heli. Haddii aad socoto waad heli shaqada. Waxaana ugu roon inta badan inaad marka shaqada bilaabayso ama aad raadinayso aad yeelato ruux garab ku ah oo kula dadaala